ma rabtaa inaad jirkaaga u beddesho mashiin guba baruurta maanta waxaan kaa caawinaynaa ama ku baraynaa 3 cunto oo mucjisa cuntooyinkan waxay dadajiyaan in baruurta la gubo dheefshiidkaagana way hagaajiyaan maahan cunto oo kaliya waa shidaal guba baruurta dhibka badan baruurta inta badan laba shay ayaa u dhib badan in la gubo baruurta caloosha iyo baruurta dhexda laakiin xal ayaan ku hayaa diyaar ma u tahay inaad beddesho muuqaalkaaga iyo caafimaadkaaga iska ilow maanta kadib iska ilow kaniiniyada qaaliga ee kiimikada ka samaysan wax walba aad u baahan tahay waxay yaalaan jikadaada daawasho habboon fadlan ila soo ilaa dhamaadka waxaan ku hayaa talooyin wax badan aad ka faa'iidi doonto aan ku bilaabno lambarka koowaad ee liiskayga maanta lambarka koowaad waa waxa loo yaqaan chili pepper ama basbaaska waxaa ku jira maaddo la yiraahdo capsaicin maadadan waa maadada ka dhigta basbaaska mid kulul marka aad cunto ama isticmaasho basbaas heerkulka jirkaaga ayaa kor u kacaya kuleel ayaa dareemaysaa habkan waxaa loo yaqaanaa thermogenesis jirkaagu wuxuu bilaabayaa inuu gubo baruur dheeraad ah cilmi baaristu waxay sheegaysaa in basbaasku uu yareeyo rabitaanka cuntada macnaha marka koowaad basbaaska markaa cunayso cunto badan waa cunaysaa laakiin in hadhow cunto kale u baahato way yaraanaysaa wuxuu kaa caawinayaa inaad cunto fiican laakiin hadhow aadan u baahan cunto kale maalintii sidoo kale wuxuu si toos ah maadadan capsaicin ee basbaaska ku jirta u beegsataa unugyada baruurta haddii aadan markaa basbaaska jeclayn xoogaa yar haba yaraatee wax yar xataa cuntada inaad ku darsato way fiican tahay sababtoo ah waxaas yarka aad ku daraysidna waxaad dareemi doontaa isbeddel weyn basbaasku waa saaxiibka koowaad ee miisaan dhimista isku day inaad ku darsato cuntadaada maraqa waxyaabahaas jirkaaga wuxuu dareemi doonaa firfircooni dheeraada waxaa jira hadda dad cayilan haddana basbaaska aad u isticmaala waa sax laakiin dadkaas haddii aysan basbaas isticmaali lahayn meesha maanta baruurtoodu joogto meel ka sii xun ay joogi lahayd waa xaqiiq lambarka labaad waxaa loo yaqaanaa green tea ama shaaha cagaaran kani ma aha markaa shaaha caadi ah waa gubaha baruurta waxaa ku jira maado la dhaho lidku ah sunta oo antioxidants ah gaar ahaan maadadan waxaa loo yaqaanaa EGCG maadadan waxay xoojisaa shaqada hormoonada guba baruurta norepinephrine waa hormoonka fariinta u dira unugyada baruurta green tea marka waxay fariintaasi ka dhigaysaa mid xoogan cabista 2 koob ayaa kugu filan ha ku darin marka sokor sababtoo ah sokortu waxay qaldaysaa natiijadii dhabta ahaa ee la gaari lahaa sokortu waxay baabiinaysaa faa'iidadii shaaha cagaaran sababtoo ah shaahani wuxuu kaa caawinayaa ama fiicanba inaad isticmaasho marka aad jimicsi ama socod samaynayso sababtoo ah marka aad shaahan intaad cabto jimicsi ama socod samaysana 17% baruurtaada waa la gubayaa waa cabitaan ama shaah dabiici ah oo aan lahayn waxyeelo hadda diyaar u noqo marka mid ka mid ah cuntooyinka ugu nafaqada badan waxaa la rabaa macnaha maadaama aad baruur gubayso wax nafaqo leh inaad cunto waxaas oo aan haddana baruur keenaynin lambarka saddexaad waa ukunta mar walba waxaa inta badan loo maleyn jiray ukunta laftigeeda inay baruur keento laakiin xaqiiqdu taas way ka duwantaa ukuntu waa isha ugu sareysa ee borotiinka tayada sare leh borotiinku wuxuu u baahan yahay tamar badan si loo dheefshiido taas micnaheedu waa jirkaaga waxa uu gubayaa baruur marka aad ukunta cunto baruur badan ayaa la gubayaa oo jirkaaga ayaaba isu cunaya ukunta waxaa fiican marka quraacda in lagu cuno sababtoo ukunta markaad cunto dhereg ayaa dareemaysaa waxaad dhex joogaysaa marka dheregtaas ilaa 36 saac ilaa 24 saac dhereg ayaad ku jiraysaa waxay ka hortagaysaa marka inay sokortu kor u kacdo sababtoo marka sokortu kor u kacdo baruurta ayaa la kaydinaya marka ukuntu in sokortaada kor u kacdo ayay ka hortagaysaa si aan baruur loo kaydin marka ukunta waxaa ku jira maado la dhaho iyadana choline waa nafaqo muhiim u ah caafimaadka beerka iyo gubista baruurta marka dadka qaar qaladaad waxay sameeyaan qaybta jaallaha ayay iska tuuraan qaybta jaallahana waa qaybta ugu nafaqada badan ee gubta baruurta waa qaybta aad ku dareemi doonto in aad dhereg aad ku dareemi doonto waa qaybta kaa ilaalinaysa inaad hadhow baahi kale ku qabato oo cunto kale u baahato ma garatay marka waa cunto raqiisa weliba saameyn weyn ku leh caafimaadkaaga saddexdan cunto haddii aad joogtayso isbeddel weyn ayaad dareemi doontaa xusuusnaa marka caafimaadku waa maalgashiga ugu weyn biyo badan inaad cabto waa qodob kale socod inaad samayso waa qodob kale 10,000 step haddaad samayso 10,000 step per day haddaad samayso saddexdan aan sheegayana aad isticmaasho wax badan jirkaagu si fudud ayay isku gubi doonaa sidoo kale hal qodob aan kuugu darayaa marka waxaad isticmaashaa xeerka la dhaho 16 maxaa la dhahaa saacadda waxay ka kooban tahay maalintii 24 saac
24 saac marka loo qaybiyo 16 saac iyo 8 saac 24 saac noqonay macnaha laga rabaa inaad quraac ama qada cunto 16 saac baahnaato macnaha 16 saac waxa cuntaa cunaysid qudaar oo kaliya cunaysaa ma fahamtay 16 saac kasto hal mar wax cunto full ah دارت بريس أنا دارت باستو أنا دارت ديجر أنا دارت وحرتون وحاجة عشان لكن نحن تمن كساعة أنت قول حيسو وأنا أنتو وحلا ده قدار وأنا أنتو وأنا ذا كل أنتو وحرتو عبي كرتاه لكن عبي سو أنا سن هين وأنا يهين وحان سكر لهين معنا وحان سكر لهين وأنا يهين مركا intaas isku soo darso insha Allah miisaanka si fudud ayuu kaaga dhici doonaa like sar muuqaalka si saaxiibo badan u gaaro hadii aad nagu cusubtanahay loobin inaad subscribe saarto si muuqaalada noocan ah aan u soo badino